kusoo dhawaada mar labaad musalsalkii afarta walaal qaybtiisii 73 waxay inoo mareysay 72 haddii aad ku cusub tahay janalka intaan guda gelin barnaamijka waxaan kaa codsanaa inaad subscribe igu caawido laagna tiraahdo saaxiib fikirkaadana aad igula wadaagto commenti insha Allah asxaabtii hore ugu xidhan janalka FIFA Soomaaliya waxaan leeyahay ku mahadsantihiin ku xirnaanshaha janalka FIFA Soomaaliya waxaan codsanayaa inta kale ee mataqaanaa aan ku soo xirmina in ay ku soo xirmaan janalka FIFA Soomaaliya maadaama uu yahay janal xambaarsan magaca Soomaaliyeed kusoo dhawaada musalsalkii afarta walaal qaybtiisii 73 drog ay noo mareysay oo dabagal ku haya aabihiis runtii ninkii drog ahaa waxa uu ku guuleystay inuu bannaan ka keeno sirtii aabihiis ee ahaaday dilkii arhaani oo u geystay ee lagu nabay Qadiir sida ogtihiin Batolga ayaa u sheegay Qadiir oo yiri dilkaas waa lagu nabay Qadiir laakiin aniga ayaa goobjoog ahaa markii dilka uu dhacay oo meel u dhow joogay oo arkay aabaha oo dilayo Qadiirna bistoolada gacanta u gelinayo drog marka wuxuu bilaabay drog in aabihiis oo dabagal ku sameeyo aakhirkii wuxuu ka daba tagay aabihii oo ninkii dhaawac ahaa isaga oo dhaawac ka dhigay hospitaalka yilay oo xogaa mir soo yeeshay rabay inuu dilo waxaa fashilinayo drog wuxuuna leeyahay dilka lagu nabay Qadiir shaqo kuma laha ee waxaa ka dambeeyay aabahay dhanka kale Caakif Atikol oo ah drog aabihiis waxaa weerar ku ah marwadan Susan ayaa weerar ku ah iyadana oo dib u soo rogaal celisay iyada oo bilowday in markaan isaga majaxaabin adag ay ku sameeyay